weerarka ka dhacay deegaanka Daynunay oo taqriiban u jiro 30 kilomitir magaalada Baydhabo dhanka magaalada Muqdisho xiga ciidamada xooga oo halka fadhiisan ku lahaa waxay ogaadeen dagaal ku soo wajahan oo ay soo wadaan nimankan nabadeedka al-shabaab markay ogaadeen kadib ay halka ka durkeen oo qaab xeeladaysan halka ugu baxeen ciidankii nabadeedka al-shabaab halka marka fadhiisanay ciidanka soo galay iyo deegaanka Daynunay ciidanka hadda markii horeba qaab xeeladaysan bay ugu baxeen ciidanka saaka bay halka dagaal kula jirmaadeen shabaabkii halka qabsaday wuxuu halka ku gubay gaari shacab ay leeyihiin iyo dhowr guryo oo shacab leeyihiin kadib ciidankii markuu dagaalka halka ka bilowday dagaal socday taqriiban saacad ba halka ka dhacay oo ciidanka xooga iyo ciidanka koonfur galbeed ee gaarka isgarabsanaya iyo kooxaha nabadeedka al-shabaab halka uu ku dhaxmaray ciidankii halka weeraray waxa ka dhintay oo ciidanka xooga dalka ah 3 askari oo miina ay halka ku aaseen nimanka nabadeedka doonay inay bixiyaan oo ku qarxday dhanka kooxaha hooyad galbeedka al-shabaabna ilaa 5 ruux ba sida xogta aan ku hayno ku geeriyootay oo taqriiban 10 kalena kaga dhaawacmeen maalmahan hadda jabkoodii ba halka ku dhacay oo meel walba ay weeraraan ba jab ba soo gaarayay ciidanka hadda Daynunay waxa gacanta ku haya ciidamada xooga dalka oo garab ka helaya isgarabsanayaan ciidanka gaarka ah dawladda koonfur galbeed mar haddii la ogaaday in meesha uu weerar ku soo fool leeyahay maxaa keenay marka horeba inay ciidanka halka ka baxaan waxyeeladu waxay ahayd dagaal oo militariga hadda ijaab isticmaalo marka ciidanka halka ka baxay waxa la doonayay in la ogaado awoodda nimankan ay hooyad galbeed ee halka ku soo wajahan marka sidaa darteed bay ciidanku ugu baxeen kadibna hadda way ku laabteen oo hadda ciidanka baa ku sugan oo gacantana ku haya deegaanka guud ahaantii nimankii hooyad iyo hargalbeedka ahaana halkaaba firxadkoodii iyo halkaaba ay ka kala carareen marka haddana xaaladda aad bay u degan tahay oo taasina waxay ahayd xaalad dagaal bay ugu baxeen marka hore waxaad sheegtay in gaari dad shacab ay leeyihiin ay halkaasi ku gubeen al-shabaab maxaa khasaaro ka dhashay gaarigaasi yaase saarnaa gaari meel buu ahaa oo ciidamada saarneen marka gaariga qof shacab baa iska lahaa sidaad ogtihiin shabaab bariyahan waxay u tafaxeeteen siday u gubayaan ay u dhibaateynayeen dadka Soomaaliyeed ee shacabka ah ciidankana inta badan uu ka hortagaa oo in dhibaato la gaarsiiyo shacabka mararka qaarna waxaa dhacda shacab aan dagaal iyo midna meel jooga aysan jirin oo dagaal meel ku socday gawaarida iska gubaan marka taa waa caadadooda hadee cidna la yaabi mayse in shacabka ay dhibaateeyaan caadada ka dhigteen gacma waxaa kaloo nagu maqaalaa oo na soo gaaraysa in sarkaal ka tirsan al-shabaab uu maamulka koonfur galbeed isu soo dhiibay maxaa nooga sheegi kartaa iyadana saaka bay ahayd markii sarkaal ka tirsan dhanka zakaawaadka ah oo madax u ahaa qayb shabaabka ka tirsan uu maanta isku soo dhiibay ciidamada gaarka dawladda koonfur galbeed sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Bashiir asiga iyo hub uu sitay ayaa hadda ku sugan magaalada Baydhabo waxaan isku soo dhiibay ciidamada gaarka dawladda koonfur galbeed marka sarkaalka hadda wuxuu ku soo biirayaa abaar oo ka soo baxay nimankii nabadeedka ahaa wuxuuna ku soo biirayaa shacabkiisii iyo dawladdiisii marka waana soo dhaweynaynaa sidii hore loogu soo dhaweeyay saraakiil kale iyo ciidamo kale oo ka soo baxay kooxaha nabadeedka ah hubka uu sito maxaad nagala wadaagi kartaa cadadka iyo intay leegyihiin wuxuu sitay qori AK-47 ah iyo boosashkiisii oo ku dagaalami jiray oo sidii uu lahaa wuxuu kala soo baxsaday kooxaha nabadeedka marka asigii hubkiisaba hadda waxay ku sugan yihiin goob loogu talagalay oo ciidamada ka soo baxsada dhanka shabaabka inta badan ay lagu haya marka halkaa buu ku sugan yahay haddana keligii buu ahaa oo ma jirin ciidan kale ama rag kale oo la socdo ma jirin aya hadda wax kale la socdo ma jirin oo laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah in qaar kamid ah oo shabaabkii inta badan shabaab ahaa oo hadda ogaanaya in dhibaatooyin badan ay ku hayaan shacabkooda oo si qaldan loo adeegsaday oo firxadda soo ah qaar kamid ah waan sugaynaa qaarna hore ay u yimaadeen miisaan intee la eg ayuu ku dhex lahaa al-shabaab adee ogaantaa aad buu miisaan ugu lahaa oo shabaab wuxuu kamid ahaa laabaha zakaawaadka ugu waaweyn buu kamid ahaa oo dadka fari jiray in diinta beenta loogu sheegay oo sida beenta loo adeegsanayay dadkii ku wacyigelin jiray buu kamid ahaa marka in badan buu been usoo sheegi jiray shacabka marka haddana haddii uu ka toobad keenay shabaab waxay u noqonaysaa dhabarjab weyn oo niman aqoon u laha dhanka beenta oo fidinaya oo ah been wadayaasha in maanta ay kasoo baxsadaan dhabarjab